kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan iyo si kasta aad noo daawanaysaan qodobada ugu waaweyn ee barnaamijyadeedkeena aan ku eegi doono haddii Allah awood leh raali uu ka noqdo waxaa qayb ka noqon doono madaxweyne Farmaajo oo lacagtii ugu badneed ku yaboohay wax ka qabashada xaaladda caafimaad dadkii shacabka ahaa ee dhibaatada ay ka soo gaartay qaraxyadii isgooska Soobe ee Muqdisho barnaamijyadeedkeena ayaan ku eegi doonaa cadadda lacageed oo uu bixiyay madaxweyne Farmaajo qodobada kale ee barnaamijyadeedkeena aan ku faahfaahin doono waxaa qayb ka noqon doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hubkii iyo dhaqaalihii ugu badnaa weydiistay wadamada ugu tunku weyn jaamacadda Carabta maxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay hadda wado olole ah dagaal ayaa al-shabaab la galeynaa dhaqaalo iyo sidoo kale hub aan ku dagaalanno hana la siiyo barnaamijyadeedkeena ayaan ku faahfaahin doonaa Siciidani madaxweynaha Puntland wuxuu Muqdisho ka wadaa olole xoogan oo ku aadan xilka qaadista taliyaha militariga Soomaaliya Generaal Odowa Yuusuf Raage maxaa ka jira inqilaaf uu ka dhaxeeyo Odowa iyo sidoo kale Siciidani qodobada kale waxaa qayb ka noqon doono dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo al-shabaab oo caawa ka soconayo deegaano hoostaga degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe shabaab oo looga daba tegay xaruntii ugu weynaa ay ku lahaayeen gobolada dhexe ee dalka barnaamijyadeedkeena ayaan qodobadaas iyo sidoo kale qodobo kale oo xiiso leh aan ku faahfaahin doonaa balse haddii ay tahay markii kugu horeysay waxaan kaa codsanaynaa in aad rukumato janalkeena si ay ku soo gaaraan wararka iyo warbixinnada iyo macluumaadka xiisaha leh ee halkan aan soo gelinno mahadsanediin dhammaantiin saaxiibayaal caawa aan barnaamijyadeedkeena ku bilaabo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa lacagtii ugu badneed wuxuu ku yaboohay wax ka qabashada xaaladda caafimaad ee dadkii shacabka ahaa ee dhibaatada ay ka soo gaartay weeraradii baahalnimada ahaa ee maalintii Sabtida ahaa ka dhacay isgooska Soobe ee Muqdisho Farmaajo ayaana saxiixay in lacag gaaraysa 500,000 oo dollar oo ugu talagalay wax ka qabashada xaaladda caafimaad ee dadkii Soomaaliyeed ee dhibaatada ay ka soo gaartay qaraxyadii ka dhacay isgooska Soobe ee Muqdisho Farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in lacagtaani uu ugu talagalay sidii loo gaarsiin lahaa shacabka Soomaaliyeed ee dhaawacyada culus ay soo gaareen wuxuuna sidoo kale uu ballan qaaday in dhaqaale kale uu ku bixin doono dhaawacyada daran ee dalka gudihiisa wax looga qaban waayo dalalka Turkiga iyo sidoo kale wadamada kale ee ku hormaray barnaamijyada caafimaadka ayuu sheegay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo in la geyn doono dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada ay ka soo gaartay qaraxyadii ka dhacay Muqdisho gaar ahaan kuwa qaba dhaawacyada aadka u daran Farmaajo ayaa noqonaya mas'uulkii u horeeyay oo xil sara ee dawladda ka qabta ee bixiya lacagtaasi waalida ee loogu talagalay wax ka qabashada dhibaatada ka jirta dadkii Soomaaliyeed ee dhaawacyada ay ka soo gaareen qaraxyadii ka dhacay isgooska Soobe ee Muqdisho Farmaajo ayaa waxa la xasuustaa tan iyo markii uu xafiiska uu joogay in lacagaha mushaaraadkiisa iyo sidoo kale dhaqaale badan uu ku bixin jiray dhibaatada soo wajahda shacabka Soomaaliyeed waana madaxweynaha kaliya intii uu xilhayay lacagihii ugu badnaa ee mushaarkiisa ku yaboohay wax ka qabashada marxalada adag oo shacabka Soomaaliyeed ay wajaheen intii uu madaxweynaha qodobareedka kale ee barnaamijyadeedkeena ku jira haddii aan sii faahfaahinno madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hubkii ugu badnaa iyo dhaqaale wuxuu weydiistay wadamada ugu tunka weyn dalalka jaamacadda Carabta ku mideysan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad naadir ah ka jeediyay shirka jaamacadda Carabta ayaa wuxuu dalalka ugu tunka weyn ee ururkaasi ku midoobay ugu baaqay in Soomaaliya hadda ay wajahayso marxalad dagaal ka dhan ah al-shabaab iyo sidoo kale dhaqaale yari baahsan wuxuuna ugu baaqay in dawladdiisa ay hadda dalalka jaamacadda Carabta ku jira ay ka codsanayso in dhaqaale iyo sidoo kale hubka ay ugu deeqi karaan ay siiyaan maadaama dagaal qaraar ay kula jirto al-shabaab madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbadiisa waxay u muuqatay mid uu codsi iyo fariin dheer u dirayay wadamada ugu tunka weyn ururka jaamacadda Carabta oo ka furmay dalka Algeria
maadaama uu sheegay in hadda dowladdiisa baahida ugu weyn ee jirta ay tahay xagga dhaqaalaha iyo sidoo kale hubka, ayna laga maarmaan tahay in dalalka jaamacadda carabta ay Soomaaliya ku garabsiiyaan abaabulka iyo sidoo kale ka qayb qaadashada dagaalada adag ee dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay kula jirto dagaalamayaasha Al-Shabaab. Horey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wadamada ku yaala gobolka iyo sidoo kale qaar ka mid ah dalalka caalamka waxa uu kaga codsaday in dowladdiisa ay siiyaan dhaqaale iyo sidoo kale hub oo ciidamada dowladda ay u adeegsadaan dagaalada shabaabka ka dhanka ah ee ka socda gobolada dalka. Dowladaha Masar iyo Uganda ayaana noqday wadamadii u horeeyay ee ka jawaaba codsiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ah in hub ay ku garab istaagaan dowladda, waxaana labadaasi dowladood diyaarado ay ku soo rareen hubkii ugu badnaa iyo sidoo kale dhaqaale fara badan, waxaana ay ka soo dejiyeen garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho. Qodob-wareedka xiga ee barnaamij wareedkeenna ku jira haddii aan sii faahfaahinno, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo tan iyo markii uu Muqdisho kaga qayb galay shirka golaha wadatashiga qaran ee dalka waday olole xoogan oo xilka qaadis ka dhan ah taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Odawa Yuusuf Raage ayaa damaciisa aad u sii xoogeystay. Saciid Dani ayaana Muqdisho wuxuu ka wadaa ololihii ugu dambeeyay uu ku raadinayo in xilka laga qaado taliyaha ciidanka militariga Soomaaliyeed Generaal Odawa Yuusuf Raage uu sheegay inuu qayb ka yahay xubnihii ugu awoodda badnaa ee saaxiibna la ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ay ishayeen 4 sano ee la soo dhaafay. Saciid Dani ayaa qorshaha uu ka leeyahay in xilka laga qaado taliyaha ciidanka xoogga dalka Generaal Odawa Yuusuf Raage ay tahay in saame qaybsi markii laga hadlo beeshiisa ay lahaan doonto taliyaha ciidanka xoogga dalka, maadaama uu sheegay in hadda ay suuragal aysan ahaan karin in Odawa uu xilka ciidanka militariga uu iska sii hayo maadaama meesha uu ka baxay nidaamkii uu qaybta ka ahaa. Odawa ayaa waxa uu hadda yahay xubinta ugu awoodda badan ee tiimkii nabad iyo nolol ee ka shaqeeya nidaamka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, isla markaana aad u firfircoon oo dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab hogaaminaya. Saciid Dani ayaa sidoo kale wada ololo uu ku doonayo in taliyaha ciidanka dhulka iyo sidoo kale booliiska Soomaaliyeed Masar Xijaar dhankooda xilalka laga xayuubiyo si uu talo ugu yeesho cidda loo soo magacaabayo, maadaama xubnaha loo soo magacaabi doono taliyaha ciidanka booliiska ay saami ahaan ka imaan doonaan deegaanada maamulka Puntland amba Jubbaland. Waa qorshe kale oo Saciid Dani uu ka wado Muqdisho. Qodobka ugu dambeeya ee barnaamij wareedkeenna haddii aan faahfaahinno, caawa waxaa dagaal culus uu ka socdaa deegaano u dhow degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ah fariisinkii amba saldhiggii ugu weynaa ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku lahaayeen gobolada dhexe ee dalka. Ciidamada Danab iyo kuwa Gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa u ruqaansaday deegaano hoostaga Aadan Yabaal oo ay Al-Shabaab isku aruursanayeen. Aadan Yabaal ayaana sheegeen saraakiisha hogaaminaysa ciidamada in ay ku wajahan yihiin oo Al-Shabaab hadda ay bilaabeen abaabul iyo sidoo kale inay isxijiyaan maadaama deegaankaasi uu yahay deegaan istiraatiiji u ah. Haddii Al-Shabaab looga adkaadana degmada Aadan Yabaal waxay ka dhigan tahay in gebi ahaanba laga sifeeyo maleeshiyaadka Al-Shabaab gobolka Shabeellaha Dhexe deegaanadii ay ka maamuli jireen. Dagaal la qaraar ayaana shacabka ay soo warinayaan in deegaanada u dhow degmada Aadan Yabaal ay ka dhaceen saacadihii la soo dhaafay. Badi dadkii ku sugnaa deegaanada u dhow Aadan Yabaal ayaa bilaabay inay isaga barakacaan maadaama ay ka cabsi qabaan in Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda dagaalada ka dhaxeeya ay saameyn adag ay ku yeelato shacabka. Waa jabkii ugu culusaa oo Al-Shabaab ka soo gaaray tan iyo markii dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay bilowday geediga dagaalka ka dhanka ah kooxdaasi. guud ahaan saaxiibayaal waxaan halkan ku soo gabagabeynayaa barnaamij wareedkeennii aad kala socoteen Somali Press TV. intaan barnaamijkan kiisi xiga aan ku kulmi doonno nabadgelyo dhammaantiin.